dhinac kastoo u dhaqaaqdo waddankeenu isuma balance garaysna baahida jirta ee aadka u badan iyo resource-ka aan haysano ee aadka u yar. meel walba daily aad u weyn ayaa ka jira, dhinac bay u jiiftaa. waxaan rabaa inaan runtii u mahad celiyo madaxda iyo mas'uuliyiinta ka shaqeysa qaybaha kala duwan ee garsoorka, oo aan islaahay dad waxay ku jiraan dadka ugu badan ee naftood hurayaalka dalkan hawsh dalkan naftooda u horay ka mid yihiin. sida la sheegay iyadoo dakhligooda waxay qaataan aad u yar yahay, duruufuhu ay aad u badan yihiin, cabsidu ay iska badan tahay, mujtamaceenu uu yahay mujtamac aan ku fiicnayn dhinaca cadaaladda xataa marka la fiiriyo, ayay runtii waxay ku dadaaleen oy u dadaalaan si aad iyo aad u weyn. waxay ku shaqeeyaan duruufo aad adag oo ay ku sabraan, waan uga mahad celinayaa. waxaan isku daynay markii ay xukuumaddan timidba aniga iyo madaxweynuhuba runtii si xoog leh inaan ula tashanno mas-uuliyiinta garsoorka joogta, inaan isla garanno inaynan samayn karin dowlad wanaagsan haddii aanan garsoorka aan la wanaajin, inaan musuqmaasuq lala dagaalami karin, inaan oo wax walba aasaas, wax kastoo xun aasaas u ah khabaa'idka la sheegi jiray inaan lala diriri karin haddii aan garsoor saxa la helin. waxaad markhaati ka tihiin isbeddel weyn inuu ku dhacay garsoorka. waxaad markhaati ka tihiin inay markii ugu horreysay dadkeenu ay fursad u heleen inay fiirsadaan waqaa'icdii maxkamadaha iyo doodihii garsoorayaasha, difaacayaasha iyo eed-oogayaashuba ay isku dabamarsanayeen, ay dadka eedaysanayaashu isku difaacayeen si cad oo dadku ay wada arkayaan oo muuqata. ma sahlanayn in heerkaas la soo gaaro, iskamayn imaanin, laakiin dadaal runtii xoog badan oo la geliyay ayay ku timid. taasina waxay keentay in bulshadu ku kalsoonaato garsoorka dalka. waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dooda oranaysa in la cusboonaysiiyo shuruucda. waana ku dadaalaynaa haddii la yidhaahdo in la cusboonaysiiyo shuruucda. waa inaan cusboonaysiinaa, waana inaan waafajinaa dastuurkeenna, waa inaan waafajinaa shuruucdeenu ay la jaan qaadaa caqiidada, diinta, dhaqanka shacabka Soomaaliyeed. waa inaan ka saarnaa wax kasta oo aan la jaan qaadi karin. xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u eegis xoog lagu sameeyo. marka waxaan u baahannahay inaynu aasaas u dhigno qawaacid waaweyn oo garsoor casri ah oo dalkan iyo dadkani ay iyaku leeyihiin ayaan u baahannahay. marka waa hawl muhiima runtii oo inoo taallo waaye. waana rajaynayaa haddii la yidhaahdo inaynu dhammaystirno. waana hubaa in wax badan laga qabtay oo ay wax badanna laga qoray, wax badan laga soo jeediyey. waxaan ilaalin doonaa oon aad u ilaalinaynaa madax bannaanida garsoorka. waanan runtii ka helaa markaan arko dood adag oo socota oo dadkii maxaanku dhahaa xeerilaalayaashii iyo qareennadii oo isku dhegan, oo qofkiina meesha taagan yahay, waxa lagu doodayana in ay tahay xeerarkii iyo shuruucdii. qofkii eedaysanahana taagan yahay, uu arkaayo meeshay wax socdaan iyo say wax u socdaan, ee aan qol mugdi intii lala galo aan xoog lagaga hadlinayn, ama inta meel la fadhiisto wax loo soo midmadoobay aan la dhahayn
qadat ilmaxkamatu calaa hebel hebel waxaase waxsan, laakiin wax cad oo la yaqaano oo dadku ay arkayaan ayuu qofkaas marka hadda qofkaas xataa haddii ay ku timaado in dil toogashaa lagu xukumo waa qanacsan yahay. alla ilahi wuxuu is oranayaa qofkaas meel kama tegin, yani maxaa saa loo dhihi waaya inuusan dhihin ayaan rajaynaya. waxaan aad u hambalyeynayaa runtii aragtida ah in la casriyeeyo oo digitalization wixii laga dhigo oo dadku ay wixii wada arkaan oo wax muuqda uu noqdo. madax banaanidu garsoorka waa muhiim, miisaaniyadda garsoorka oo kor loo qaado waa muhiim, adeegyada oo hadda ta ugu daran la sheegay xabsiga runtii oo qiraya inay dhibaato badan naga haysato, annagood ogtihiin weliba inaan dagaal kula jirno niman dhib badan, qaar badani ay keenaan, qaar badan lasoo qabto magaaladii hadda iyo dalkuba dee dadkeeni waxoogaa ay dembiyadii ay bateen, mushkiladihii ay iska fara badan yihiin, haddana duruuf xabsi oo aada u weyn ayaa jirta. aragtiyaha ay badan iyo talooyin badan ayaa socda. waxaan rajaynaynaa insha allah